السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته kusoo dhawaada Baghdad Online Academy iyo dibloomada Business Management maanta waxaan bilaabnaa marolkii toddobaad oo ku saabsan motivation. Actually dhiirigelinta shaqaalaha waxay ka mid tahay waxyaabaha asaasiyaadka ah ee looga baahan yahay maamulka businesska. Shaqaale motivated ah, dhiirigelin fiican haysta, waa shaqaale runtii diyaar u ah inay wax badan qabtaan, hawlo badanna qabtaan. Businesska runtii in guulal iyo yoolkii uu lahaa uu gaaro waxaa udub dhexaad u ah inuu leeyahay amaba haysto businesska shaqaale u carboon, firfircoon, ay ka go'an tahay motivationkii loo baahnaana haysta si yoolkii iyo hadafka businesska uu leeyahay uu gaaraan. Haddaba waa maxay motivation? Motivation is defined as the force that causes an individual to behave in a specific way. Motivationka wax kale maaha, waa awoodda ama quwadda keenaysa ama sababaysa qofka in uu qaab dhaqan u la yimaado amaba behavior uu la yimaado. Maanta qof walba markuu subaxdii soo kacayo, uu soo dheelmanayo subaxdii ama hurdada ka soo kacayo, waxaa jira wax motivation siinaya qofka inuu hurdada ka kaco. For example, haddii salaadii ay tahay uu soo kacaya subax, motivationka uu haysto waxa waaye riwaadka ilaahay subxaana wa tacaala u ballan qaaday dadka muslimiinta ah. Subaxdii ishak muxuu ahaa dheelmanaya, salaadii masaajidka ku tukanaya, ajirka iyo xasanaadka waa motivation. Sidoo kale qofka markuu shaqada usoo dheelmanayo subaxdii, shaqaalaha hadduu yahay uu businesska soo aadayo ama organizationkii, waa inuu jiro wax motivate garaynayo. So marka shayga motivationka wax kale maaha, waa awoodaha keenaya qofka inuu habdhaqan cayiman la yimaado. Habdhaqanka wuxuu noqon karaa mid wanaagsan ama mid xun ayuu noqon karaa. Motivation refers to the degree of readiness of a person to pursue specific goals. Motivation marka waxaa loola jeedaa heerka diyaargarowga qofka uu diyaar u yahay in uu baacsado amaba uu raaco amaba uu raadsado goal amaba yool ama hadaf. Managers often have difficulty motivating employees. Marka inta badan waxaa dhacdaa maamulayaasha ganacsiyada iyo businesska in ay caqabado badan iyo dhibaatooyin badan ay la kulmaan amaba ay ku adkaato inay dhiirigeliyaan shaqaalahooda. Laakiin motivation is really an internal process. Marka motivationka lagu sheegayo sidiisa waa wax internal process oo ka imaanayo qofka shaqaalaha dhexdiisa. Sidee is the result of the interaction of a person's needs, their ability to make choices about how to meet those needs, and the environment created by management that allows these needs to be met and the choices to be made. Waxaa la dhihi karaa motivationka waa falgalka ay falgalayaan baahiyaha shaqsiga uu leeyahay, person's needs, iyo awoodda qofka uu u leeyahay inuu choices uu sameeyo, doorasho uu sameeyo oo ku saabsan sida uu baahiyaha u buuxin lahaa, iyo environmentiga uu maamulka ganacsiga ama businesska ama organizationka uu abuurayo, kaasoo u ogolaanayo qofka in uu baahiyihiisii uu gaaro. So marka waxaan leenahaa motivationka waa interaction, saddex shay interaction sameynayaan. Waxaa interaction sameynaya baahiyaha shaqsiga uu leeyahay iyo fursadaha iyo choiceska qofka uu haysto si baahiyaha uu u miidgareeyo, uu u gaaro, iyo environmentiga uu businesska diyaariyey, uu environmentigaas yani mid u ogolaanayo qofka inuu gaaro baahiyihiisa. Yeah, very important. For example, maanta qofka markuu shaqo raadsanayo oo shaqaalanimo qoranayo, baahi ayaa jirto, need ayaa jirto uu rabo inuu gaaro. Baahidaas waxay noqon kartaa basic needs, sida inuu cunno helo, ijaaru iska bixiyo, korontadii iska bixiyo, dhar uu iibsado, basic human needs, yani inuuba qababa qofkaas uusan haysaninba. So marka baahidaasaa ishag muxuu ahaa qofka waxay siinaysaa motivation. Motivation ayay siinaysaa inuu shaqeeyo, inuu dadaalo si baahiyaha basic ah uu leeyahay, inuu cuno, uu cabo, uu labisto, uu meel degaan, uu helo shelter, uu helo. Baahidaasaa marka waxay ku kasbaysaa qofka inuu yani uu shaqeeyo, uu shaqo u raadsado. So marka actually halkan baahida qofka uu lahaa iyo qaabkuu ku gaari lahaa iyo environmentiga managementiga ay abuurayso oo ka caawinaya qofka inuu baahidaas gaaro, waa falgalka ayaa waxaa ka dhalanaya motivation. Waa very important. Marka waxaa jira theories of motivation, waxaa jira aragtiyo cilmiyeysan oo kala duwan oo runtii la propose gareeyey, oo runtii ka hadlaya sida shaqaalaha motivation ay u noqon karaan ama motivated u noqon karaan. Theories of motivation explain marka how workers select behavioral actions to meet their needs and determine their choices. Aragtiyada kala duwan ama theorieska ku saabsan motivationka waxay sharxayaan sida shaqaalaha ama shaqaalayaasha kala duwan ay u doortaan
behavioral actionska kala duwan si baahidoodii ay u meedgareeyaan iyo ayna u doortaan choiceska kala duwan ay haystaan. The following theories offer advice and insight how people actually make choices to work hard or not work hard based on their individual preferences, the available rewards, and the possible work outcomes. marka insha Allah cutubkan oo 4 party ka kooban waxaan ku sharxi doonaa qayb ka mid ah aragtiyada kala duwan ee la propose gareeyay oo ka tarjumayo sida shaqaalaha ay motivation u noqon karaan ama motivated u noqon karaan, baahiyahooda sida ay u xadidaan, behaviorkooda waxyaabaha sababo iyo preferencegooda iyo waxyaabaha ay prefer gareynayaan, iyo arrintaas saameynta ay ku leedahay available rewardska amaba abaalmarinada organizationka ama businesska offer gareynayo iyo outcome-ka ka dhalan kara natiijadooda. marka waxaa jiro culumo kala duwan oo dhinaca maamulka ku takhasusay oo runtii propose gareeyay aragtiyo kala duwan oo ka hadlaya sida shaqaalaha motivated uu u noqon karo amaba sida managementiga ama maamulka uu u dhiirigelin karo shaqaalaha. aan bilowna marka theorieskaas waxaa ka mid ah theory loo yaqaano ama aragti loo yaqaano equity theory amaba theoryga cadaaladda. According to equity theory, based on the work of J. Stacey Adams, 1963, workers compare the reward potential to the effort they must put in. Equity exists when workers believe that rewards equal efforts. fikradan amaba aragtidan la yiraahdo equity uu iska leeyahay ninka la yiraahdo J. Stacey Adams waxay leedahay shaqaalaha wuxuu mar walba isbarbardhigaa rewardka uu helo oo iyo effortiga uu bixinayo, yani waxyaabaha asaga abaalmarinada uu helayo iyo dadaalka asaga uu bixinayo ayuu mar walba isbarbardhigaya. so marka equity amaba sinaan waxa ay jirtaa amaba cadaalad waxa ay jirtaa marka uu shaqaalaha aamino in abaalmarinada rewardska la siinayo uu u qalmo amaba uu la mid yahay effortiga iyo dadaalka uu bixiyay. fikirka ay la eega marka halkan so marka qofkii shaqaalaha baahi uu qabaa, baahidaasa waxay keenaysaa inuu si baahidiisa u buuxiyo wuxuu sameynayaa effort badan iyo dadaal badan ayuu sameynayaa si goolka iyo yoolka uu damacsan yahay uu u gaaro oo ah inuu reward helo. marka hadhowti marka wuxuu isbarbardhigayaa rewardkii uu helay iyo effortigii uu bixiyey. haddii labadooda ay sinaadaan oo equal ay noqdaan wuxuu dareemi doonaa satisfaction aad u sareeyo. laakiin hadduu dareemo dadaalka iyo effortiga iyo juhdiga uu bixinayo inuu ka badan yahay rewardkii la siiyey, then halkan waxaa soo baxayso inuu noqdo dissatisfied amaba midaan qanacsanayn. so marka runtii halkan waxaa laga dheehanayaa marka in organizationka ay tahay muhiim shaqaalaha waajibaadka iyo responsibilitieska iyo waajibaadka loo diraayo iyo rewardka la siinayo inay mar walba ay islahaadaan. haddii shaqaalo badan yani shaqo badan madaxa loo saaro iyo howlo badan iyo mas-uuliyad badan loo dhiibo, mushaar liitana la siiyo, taa waxaa ka dhalanayso yani inuu noqdo shaqaalihii mid aan motivated ahayn. theorygan sidoo kale wuxuu leeyahay employees just do not look at their potential rewards, they look at the rewards of others as well. Inequalities occur when people feel that their rewards are inferior to the rewards offered to other persons sharing the same workloads. sidoo kale theorygan equity theory wuxuu uu leeyahay amaba aaminsan yahay sidoo kale in shaqaalaha uusan isbarbardhigaynin oo keliya effortiga uu sameynayo iyo rewardka, wuxuu kaloo isbarbardhigayaa sidoo kale rewardka uu shaqaalaha helayo iyo shaqaalaha kale la halmaala rewardka uu helayo. so marka waxaa jiri doona cadaalad daro iyo inequity iyo sinaan la-aan ayaa jiri doontuu leeyahay haddii shaqaalaha amaba shaqaalo ka mid ah shaqaalaha uu dareemo rewardska ay helayaan in uu ka liito rewardska la siinayo shaqaalaha ayaga la midka ah oo ay isku shaqo yihiin amaba workloadskooda uu the same yahay. so marka halkan shaqaalaha qofka shaqaalaha ah ma fiirinayo oo keliya in shaqada uu qabanayo iyo dadaalka uu bixinayo iyo rewardka uu helayo inay isla siman yihiin oo keliya ma fiirinayo, wuxuu kaloo fiirinayaa sidoo kale in asaga rewardka la siinayo ama ayada rewardka la siinayo iyo shaqaalaha asaageeda ah amaba asaagiisa ah oo isku shaqada ay hayaan rewardka la siinayo inay siman yihiin in kale ayuu fiirinayaa. oo haddii uu dareemo marka shaqaalaha kale asaga ay isku shaqo yihiin in award amaba reward ka badan la siiyo, then wuxuu noqonayaa qof aan motivated ahayn. so marka inta badan waa dhacdaaba runtii waxaad arkaysaa 2 qofood ama 3 qofood oo isku shaqo qabanayo
isku same workload ah laakiin mushaaraadkoodii ay kala badan yihiin for no reason sabab la'aan يعني mushaaraadka dadka ayagoo school workload ah ayay kala duwanaan karaan مثلا khibradda ayaa la fiirinayaa qofkan amaba مثلا seniority qofkan 10 sano shaqeynaya qofkan shal uu soo galo shaqada waxaa laga yaabaa inay isku mid tahay laakiin aysan isku mushaar noqon karin maadaama qofkan muddo dheer uu shaqeynayo sanad walba mushaarkiisa uu kordhay laakiin waxaa laga hadlayaa laba qofood oo siman oo waxba aan ku kala duwaneen shaqadoodana ay tahay the same يا خبرتنا the same ay tahay isku muddana shaqeynayo inay kala badnaadaan mushaaraadka taas waxaa ka dhalanayso lack of motivation so marka waxaa laga rabaa every manager needs to ensure that any negative consequences from equity comparisons are avoided or at least minimized when rewards are allocated so marka qofka maamulaha ganacsiga ama business manager waxaa looga fadhiyaa marka halkan in uu runtii ku dadaalo natiijooyinka salbiga ah ama negative-ka ee ka dhalan karo sinaan la'aanta yaa rewardska shaqaalaha la siinayo natiijada ka dhalan karto inuu meesha ka saaro amaba ugu yaraan yareeyo markii la reward gareynayo shaqaalaha so marka mushaaraadka markii la qorayo waa in la hubiyaa dadka isku shaqada ah isku khibradda ah isku workloadka ah inay isku mushaaraad qaataan oo aan la kala badanin sidoo kalena waa in la hubiyo qofka mas-uuliyaadka iyo effortiga iyo dadaalka laga rabo iyo rewardka la siinayo inay islahaadaan waxaa jirta fikrad kale amaba aragti kale oo la yiraahdo expectancy theory according to this theory by Victor Vroom 1964 an employee will be motivated to make a high level of effort when they believe that effort will lead to a good performance appraisal theory-gan uu iska leeyahay ninka la yiraahdo Victor Vroom wuxuu leeyahay shaqaalaha wuxuu noqonayaa mid motivated ah ya oo dhiirigelin fiican haysto ya haddii ii sheeg muxuu ahaa markuu aaminsan yahay effort will lead to a good performance appraisal horta erayga expectancy waa maxay waa yani waa in wax la fisho ya so maxaa la filanayaa waa shaqaalaha wuxuu filanayaa dadaal badan hadduu sameeyo in ay ka dhalanayso qiimeyn wanaagsan oo la qiimeeyo shaqadiisa sidoo kale waxaa leeyahay a good appraisal will lead to organizational rewards qiimeynta wanaagsan oo positive ah marka waxa ayadana ka dhalanayo reward fiican in ay organizationka siiso reward awaalmarin in la siiyo the organizational rewards marka awaalmarinada oo organizationka ay siinaysana waxay buuxin doonaan satisfy personal goalska uu qofka shaqaalaha uu leeyahay so marka theory-gan wuxuu ku dhisan yahay marka fikradda ah in shaqaalaha inay motivated noqdaan iyo in kale ay ku xiran tahay filashada ay ka filayaan maamulka mar walbu shaqaalaha uu filayo haddii dadaal badan uu shaqaalaha sameeyo in qiimeyn positive ah ay ka dhalanayso oo inta la qiimeeyo oo qiimeyn wanaagsan asaga la qiimeeyo qiimeynta wanaagsanna uu ku helayo rewardskana baahiyiisa ay buuxinayaan filashadaas la filayo ayaa waxay dhiirigelinaysaa shaqaalaha dadaal badan iyo effort badan inuu sameeyo therefore marka motivate workers managers must one strengthen workers perception of their efforts as both possible and worthwhile si marka haddaba marka shaqaalaha loo dhiirigeliyo aragtidan marka waxay leedahay maamulka waxaa looga fadhiyaa inay xoojiyaan fikirka ay ka qabaan shaqaalaha dadaalkooda inuu yahay mid qiimo leh oo hadhowti haddii dadaal badan ay sameeyaan la qiimeyn doono dadaalkooda rewardna ay ku helayaan taas waxaa marka ay la micno tahay haddii shaqaalaha ay dareemaan si kastoo ay u dadaalaan extra effort ay sameeyaan haddii wax qiimeyn positive aysan ka dhalan doonin taas micnaheedu marka waxa weeye inaysan dadaal sameyn doonin sidoo kale waxaa ka dhalanaysa fikradda in clarify expectations of performance sidoo kale shaqaalaha asigana firkiisa si perception sax ah uu u qaato waa in performancega laga filayo in loo caddeeyo oo 1 2 3 4 5 laga raba inaad qabato intaas ka badan haddaad samayso you did a good job rewardaad ku helaysaa expectationka iyo performancega laga raba waa inuu caddayo sometimes waxaa dhacdo dadka in la shaqaalaysiiyo waxa laga rabana aysan ogeyn sidoo kale tie rewards to performance sidoo kale maamulka waxaa looga fadhiyaa inay isku xiraan rewardska ay bixinayaan iyo performancega inay isku xiraan the higher the performance the higher the reward mar walba qofka performancegiisa uu wanaagsanaado oo fiicnaado mar walba reward fiican la siiyo taa marka waxaa ka dhalanayso motivation fiican make sure that rewards are desirable sidoo kale waxaad ku dadaashaa rewardska aad bixinaysa inay yihiin kuwa ay jeclaystaan dadka la siinaya rewardska amaba shaqaalaha yani rewardska haday noqdaan wax useless aan micno ku fadhinin then ayagana firkooda motivation dadka ma siinayaan marka halkan marka waxaa inooga caddaatay theoryga expectancyga marka runtii inuu yahay theory aad u qiimo badan inta badan marka waxaa dhacdo dad badan oo shaqayn lahaa effort badan bixin lahaa inay iska daayaan sababto ah waxay leeyihiin haddii aan dadaalo iyo haddii aan dadaalinba
wax aniga ii soo kordhaya ma jirto promotion ma helayo oo in lay dalacsiiyo position fiican laysi gaarsiiyo ma helayo mushaarkeyga waxba kuma kordhayo aniga marka maxaan isku dilaya oo isku rafaadinaya shaqaalihii kale oo ila midka ahaana wax yani aan dhaami doono ma jirto so marka runtii taasna marka waxay fashil ku tahay ganacsigii iyo maamulkii iyo guud ahaanba yoolkii iyo hiigsigii uu organizationka lahaa so marka waxaa loo baahan yahay in arrintaas lagu dadaalo halkaas waxaa inoogu dhammaaday cashirkayga maanta intaan ku kulmi doono cashirka xiga waxaa idinka tegaya fi amaan illah wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu